waxaan u mahad celinayaa dadkii soo agaasimay xafladan aadka u quruxda badan ee maamuuska iyo sharafta lagu huwinayo soo laabashada mar labaad madaxweyne sharafeedka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo labada gole. waxaan rabaa qof kasta oo halkan jooga magaca iyo maksabka uu leeyahay inaan ku salaamo salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib waqtiga oo gaaban awgiis wax badan baa ii diyaarsanaa, laakiin waxaan rabaa hadalkayga inaan laba qaybood u kala qaado. qayb waxaan kula hadlayaa bulshada caawa horteyda fadhida, hadday aqoon-yahan leedahay, culimo u diin, siyaasiyiin, waxgarad, dhallinyaro, haween, bahda saxaafadda iyo inta codkayga miidiyaha ka dhagaysan doonta. insha allahu bismi illahi tabaaraka wa tacaala dardaaran gaar ah oo aan kula hadli doono iyo fariin aan u dirayo madaxda qaranka Soomaaliyeed ee ugu horeeyo madaxweynaheena xasan sheekh maxamuud. maadaama la igu yeeray aqoon-yahan, walaalkay wuu mahadsan yahay. anigu dadka aqoonta heerka sare ka gaaray maahi, laakiin wuu igu sharfay. dadka markay wax cabirayaan waxay soo qaataan halbeeg ay wax ku cabirayaan. halbeegayga caawa waxaan rabaa inaan ka dhigo, waxaa jiray nin reer Masar ah oo aqoon-yahan ah oo aad u jeclaa in uu mujalladaadka ama jaraa'idyada ama newspaperada akhriyo. maalin maalmaha ka mid ah isagoo akhrinaya journaal yaa waxaa dhacday wiil uu dhalay inuu journaalkii ka akhrin waayey oo mar walba uu journaalkii ka laabo oo ka dabagediyo oo ka rabsheeyo. wuxuu sameeyey si uu wiilkii u mashquuliyo ayuu wuxuu sameeyey journaalka waxaa ku dhex jiray page uu ku sawiran yahay maapka adduunka oo dhan. page-kii ayuu soo bixiyey odagii, wuu jeexjeexay, dhulkuu ku tuuray. wiilkiiba wuxuu yidhi aabbo lacag baan ku siinayaa isku soo toosi maapka adduunka. wuxuu islahaa inta uu wiilka ku mashquulsan yahay isku toosinta adiguna aad ka faa'iidaysatid oo aad akhriskaaga sii wadatid. wiilkii wuxuu sameeyey warqaddii dhinac waxaa kaga sawiran maapka adduunka, dhanna waxaa kaga sawiraa qof bini aadan ah. wiilkii warqaddii buu dhanka kale u gediyey, qofkii buu isku toosiyey, madaxii, gacmihii, lugihii, qofkii oo dhammaystiran baa soo baxay. qofkii oo dhammaystiran markuu soo baxay, maabkiina waa saxan yahay, isla markiiba waa soo hordhigay. odagii baa la yaabay, wuxuu yidhi maxaa dhacay oo see durba aad ku soo toosisay maabkii adduunka oo aan waxba ka qaldanayn? wuxuu yidhi aabba ha ku mashquulin, warqaddii baan dhanka kale u dhigay, qof baa ku sawiraa, qofkii aan isku toosiyey, markaan qofkii dhisay adduunkiina waa dhismay. waxaan rabnaa bulshooyin si loo badbaado inaan noqono bulsho dhisan. bulsho dhisan ayaa adduun dhista. dad dhisan oo dhaqan ka dhisan oo aqoon ka dhisan oo siyaasad ka dhisan oo cilmi ka dhisan oo dhaqaale ka dhisan ayaa adduun dhisa. ilaahay ha naga dhigo kuwa dhisan. nafteenna iyo ummaddeenna si aan u dhisno, awalan aan ku dhiirigelinno aqoonta adduunku uu meel ku gaaray, barashadeeda iyo asluubta wanaagsan iyo dhaqanka inaan ku boorino ummaddeenna. intaas waxaan kula hadlayaa bulshada caawa horteyda fadhida. waxaan rabaa kelmad dardaarana madaxweyne sharafeedka inaan u diro oo aan idhaahdo, madaxweyne soo dhawow mar labaad. kuma cusbid xafiiska iyo meesha hoggaanka dalka laga wado ee villada, kuma cusbid. waxaad tahay markii labaad ee aad nasiib u yeelato si doorasho ah aad ku timaaddo. wixii lagu doortay waad og tahay, nin la doortay waa nin la doorbiday bay Soomaalidu horey u tiri. mar haddii lagu doortay, wixii lagu doortay waad garanaysaa, meeshay Soomaali ka bugto waad og tahay, waxay u baahan tahay waad og tahay. halbeegaas aqooneed ee adiga kaa buuxo ee aad macallinka ka ahayd qaado, bulshada hoggaan wanaagsan u noqo, ilaahayna ha kaa dhigo.
meesha loo socdo ee geediga ah u sahmi meel fiicanna gee taas ayaan ku oonbixi karnaa meel aan ku gaari karnaa horumar ku gaari karnaa afrika iyo adduunkaba aan kula tartami karnaa dhalinta maanta soo koraysa jiilka hadda nool iyo kuwa dhalan doona 50 sano iyo 100 sanana ay hiigsi ka dhigan doonaan insha Allah biidni Allah tabaaraka wa taala waxaan rabaa mar labaad inaan iraahdo waad mahadsantihiin labada gole iyo madaxweyne sharafeedka baa soo dhawaadaan codsigayga mar labaad wuxuu yahay madaxweyne anoo ku hadlaya afka aqoon-yahanada iyo waxgaradka waxaan rabaa inaad shaqadaada ka bilowdo hadduu ilaahay yiraahdo maxkamad dastuuri ah dalka inaad u dhisto si looga badbaado isqabqabsi si looga badbaado maksabkan la kala leeyahay in la isku qaldo mar labaad inaysan dhicin oo taas iyada laga gudbo waxaad xoogga saartaa maxkamad dastuuri ah qodobka labaad ee aan ka codsanayo wuxuu yahay maqaamka gobolka banaadir oo awalba miiska ku saaraa mar horena la soo saaray in aad meel saarto maqaamkaas isaga ah oo loo buko banaadir meel saar madaxweyne muqdisho waa hooyadii Soomaaliya muqdisho waa maalkii Soomaaliya muqdisho waa indhihii Soomaaliya muqdisho waa lugihii Soomaaliya muqdisho fadhiida Soomaaliya fadhiida weeye ka saar muqdisho inay fadhiid noqoto ka saar banaadir inay fadhiid noqoto meel iska fadhido ka saar maqaamkeeda meel gee hadduu ilaahay yiraahdo allana ha geeyo meel sare waxaan rabaa inta caawa hortayda fadhida iyo madaxweynaha iyo inta codkayga dhageysan doonta hal codsi ayaan idinka rabaa inaad la yeeshaan codsigaas muxuu yahay inaan u duceyno marka koowaad madaxdeena inuu ilaahay maqaam sare gaarsiiyo aan ku qanacno iimaanka alla uu noo geliyo iyagana ay noo noqdaan madax wanaagsan inaan u wada duceyno codsiga labaad aan rabo warkayga inaan kusoo gabagabeeyo waxay tahay waxaan la xanuunsanayaa oo aad ii damqaya oo runtii xanuun iyo walbahaar igu haya dadkii ku waxyeeloobay ee maalkooda ku waayay suuqa isgooska banaadir in ilaahay wixii ka baylahay ee ka gubtay ilaahay uu u soo kabo in la garab istaagana waa iga codsi madaxda iyo shacabka oo dhan in ay u istaagaan u gurmadaan walaalahood garab istaagaan u duceeyaan garab istaag iyo hil ay u muujiyaan ayaan codsanaya banaadir oo noolaatay waa Soomaaliya oo noolaatay walaalayaal ha loo duceeyo dadka iyaga ah ha la garab istaago cid kasta oo fariintayda caawa ay gaarto ee madaxda ay ugu horeysana waxaan rabaa biidni Ilaahay tabaaraka wa tacaala sidii ummadihii kale loogu gurmaday in iyagana loogu gurman doono oo loo gurmado oo aan iska bilowno oo meel kasta uu gaaro suuqaas banaadir isgooska banaadir ee gubtay insha Allah biidni Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan leeyahay wixii aad ku weyseen bedel khayr qaba Allah idin ka siiyo haddii naf ay ku waxyeelowdayna Allah u booqanayo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato islaamku ha midoobo garab istaaga ayaan sharaf ku leenahay Soomaaliya hal isu garab istaago wax kasta oo wanaaga waxa weeyaan wax kasta oo xumaanana hal isu garab istaago sidii la isaga goon lahaa hada wabillahi tawfiiq mar labaad iyo mar saddexaad soo horjoogsigiina waa ay sharaf aad iyo aad baad mudnaan u leedihiin iyo sharaf salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh